marka koowaad maanta waxaa dhaqan galay oo dhaqangalkiiskii bilowday heshiiskii sanadkan bilowgiisii aan la galnay walaalaheenna Turkiga oo laba arrimood oo muhiim ah ku saabsanaa oo ah in la iska kaashado dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha marka waa bilowga dhaqangalkii heshiiskaas isaga ah maanta aan u taagannahay qodobka labaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad oo aan leeyahay waxaan bilownay si dhab ah u bilownay sahankii iyo geedigii lagu carraabin lahaa gaajada iyo faqriga waxaynu ka gudbaynaa ilaahay idankiis faqriga waxaanan bilowday inaan ka faa'iideysano khayraadka ilaahay dalkeena dhigay marka maanta waxaynu isla qaadaynaa heestii ahayd la carraabi gaajo caydh xoolo laga dhaqay marka waxaan rajaynayaa inay carrawday baashaas oo ina dhaaftay guul baan leeyahay shacabka Soomaaliyeed way bilaabatay waana ku guuleysay